ayadoo labadii bilood ugu dambeysay macaawinaad iyo gurmad bilaadantinimo loo fidinayay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada Caabud Waaq oo ay halakeen isla markaana waxyeello ay u geysteen roobkii guga ee ku dhuftay gobolada dhexe dalka Soomaaliya gaar ahaan degmada Caabud Waaq ayaa waxa dadku gurmad iyo waliba gacan bilaadantinimo ay ka helayeen hay'adaha bilaadantinimada ka shaqeeya oo ayagu gacan u fidiyay qaar ka mid ah shacabka reer Caabud Waaq oo ay la soo darseen xaalado nolol xumo oo kala gedisan inkastoo ay taasi jirto ayaa haddana shacabka reer Caabud Waaq waxay si weyn uga cabanayaan inta badan qaar ka mid ah NGO-yada ka shaqeeya gudaha degmada Caabud Waaq oo ayagu partner la ah hay'adaha UN-ka iyo waliba inta badan hay'adaha maxalliga ah ee ka shaqeeya gobolada dhexe dalka Soomaaliya gaar ahaan waqooyiga gobolka Galgaduud oo wixii loogu soo dhiibay sidii la rabay aan u gaarsiin shacabka loogu soo dhiibay masaakiinta haddaba qaar ka mid ah shacabka reer Caabud Waaq oo ayagu nolol xumo iyo waliba xaalado badan ay la soo darseen ayaa waxa ay ka cabanayaan in dhaqaale aruurin raashimo iyo waliba waxyaabo badan oo kala gedisan oo hay'adaha gacantooda ka soo baxay isla markaana ku soo dhacay gacanta qaar ka mid ah NGO-yada ka shaqeeya degmada Caabud Waaq ayaa sidii la rabay aan u gaarsiin dadkaas masaakiinta ah walow aan la garanayn sababta iyo ujeedada ka dambaysa arrintaasi haddaba waa kuwan qaar ka mid ah shacabka reer Caabud Waaq oo ayagu dhaliil iyo waliba cabasho ballaaran u soo jeediyay NGO-yada ka shaqeeya gudaha degmada Caabud Waaq gaar ahaan kuwa sidii la rabay aan u gaarsiin dadkaas wixii loogu soo dhiibay khaasatan culimaadudiinka waxaanu ka cabanaynaa oo cabasho ballaaran ka soo jeedinaynaa NGO-yada magaalada ka shaqeeya sida Hobel oo kale waxay ku dhaqmaan wax cadaalad darro ah oo dulan ah dadkii masaakiinta ahaa oo xuquuqdaas loogu talagalay ma ay gaarsiiyaan waxaanu rabnaa oon ka codsanaynaa hay'adaha samafalka oo caalamiga ah inay arrintaas wax ka qabtaan ma gaaraan dadka masaakiinta waxaa waliba hadda ugu dambeeyay NGO-ga Hobel oo hadda wax qorqorahayay asaguna wuxuu soo gaarsiiyay malhamda ku hor meesha mareen buu maray dadka masaakiinta caawinaya kama inaan wax xaq anagi Hobel waxaan ka codsanaynaa inay si xaq anagi islaamada inta badan hay'adaha gargaarka iyo gurmadka bilaadantinimo u fidiya dadka masaakiinta ah ee ay la soo darsaan xaaladaha kala gedisan ayaa diiradda saara mar walba sida ay ugu gurman lahaayeen isla markaana u seef garan lahaayeen nolosha dadkaas masaakiinta ah oo mar walba ay u sameeyaan mucaawinaad iyo gacan bilaadantinimo si dadkaasi loo badbaadiyo isla markaana ay uga baxaan baahida iyo nolol xumada kala gedisan dadkaasi la soo darsta inkastoo hay'aduhu si toos ah aysan dadkaasi wax u siin ayaa haddana waxay u soo marsiiyaan waxa ay bixinayaan ama dadkaasi ay siinay ugu deeqayaan NGO-yada ayagu mar walba ka shaqeeya isla markaana u dhaxeeya hay'adaha iyo dadka oo ka howlgala degmada Caabud Waaq iyo waliba inta badan guud ahaan dalka Soomaaliya waxaana NGO-yada oo isticmaalaya isla markaana adeegsanaya qoraallo iyo waliba halqorigyo kala gedisan ay u isticmaalaan waxyaabaha loogu soo dhiibo dadka masaakiinta ah siyaabad kala gedisan inkastoo ay jiraan NGO-yo ama dad u shaqeeya sidii la rabay halka qaar ka mid ah NGO-yadan oo aysan ahayn kuwa dadka wax u gaarsiiyay sidii loo baahnaa sidoo kalena ay dhexda ama fursadda ka baxaan dadkii masaakiinta ah wixii ay heli lahaayeen ماذا حسن ديني تلفزيون عالمي Universal Caabud Waaq